والسلام على رسول الله dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo joogto gudaha dalka iyo dibaddaba waxa aan joognaa oo idin kala hadlaynaa xaruntii hotelka Al-Hayat subaxnimadii saaka waxaad dhageysateen warbixin uu idin siiyay taliyaha booliska oo ku saabsan soo afjaritaanka la soo afjaray howlgalkii ciidamada geesiyaasha ah qaranka Soomaaliyeed ay ku difaaceen kuna badbaadiyeen shacabkii ku sugnaa halkan kuwii deganaa iyo kuwii u yimid inay shirar iyo kulamo ay ku yeeshaan oo maalin jimco ah waxaad kaloo dhageysateen warbixintii ku saabsanayd dhimashada iyo dhaawacyada oo uu ka warbixiyay wasiirka caafimaadka halkan aan ku sugannahay waa hotel Hayat 19 bisha oo maalin jimco ah 7 fiidnimo salaadii maqrib kadib waxaa weerar bahalnimo ku soo qaaday maleeshiyada al-shabaab ayuu ugu talagalay inay ku argagixiyaan oo ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed saad ogtihiin hotel Hayat waa goob ganacsi waa goob shacab ma aha xero military ma aha base ciidan ma aha meel howlgala ciidan ay ka socdaan waa xarun ganacsi oo shacab Soomaaliyeed oo dhididkooda iyo muruqooda maalay ay leeyihiin dadka joogay waxay ahaayeen dad jimcadii soo tukaday salaadii maqrib ka soo baxay halkan hawlo kala duwan u yimid qaarkood waa deganayeen socotay ahaayeen qaarkood waxay ahaayeen ganacsato qaarkood waxay ahaayeen muruqmaal qaarkoodna waxay u soo aadeen inay kula sheekaystaan saaxiibadood waxay lahaayeen ciroole waxay lahaayeen caruur waxay lahaayeen dhalinyaro waxay lahaayeen aqoon-yahan waxay lahaayeen haween waxay ahaayeen indhihii ummadda Soomaaliyeed ujeedada qolyaha weerarka soo qaaday waxay ahayd inay indhaha ka ridaan bulshada Soomaaliyeed kuma aysan guuleysan oo markii ugu horeysay oo jugta hore ay dhacday ciidamada geesiyaasha ah booliska iyo nabad sugidaba waxay u yimaadeen daqiiqadii hore inay badbaadiyaan bulshadii ayagoo ku howlan inay badbaadiyaan daqiiqadii ugu horeeyay waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay haliyeeyo shuhada ah oo howlgalkaas isaga ah ayagoo badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed daqiiqadii ugu horeeyay ayay yimaadeen badbaadadaas iyada ahna way ku dhaawacmeen qaarkoodna maanta waa dhaawac qaarkoodna waa shahiideen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka aqbalo shahiidnimadooda saad ogtihiin howlgalka wuxuu qaatay xilli ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la badbaadiyo nafta waxaad arkaysaan ilmo caruur ah hotelka laga soo badbaadiyay waxaad arkaysaan haween hotelka laga soo badbaadiyay waxaad arkaysaan dad waayeel iyo dad cuqaalo ah oo hotelka laga soo badbaadiyay dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jira burbur baa jira hanti ayaa ku burburtay iyo dhaqaale ummadda Soomaaliyeed ay abuureen oo dhididkooda iyo muruqooda ay ku maaleen ayaa jira laakiin ciidamada ayagoo dadaalaya waxay ku guuleysteen inay badbaadiyaan intii badneyd shacabkii meesha ku sugnaa kuwii meesha deganaa waxaa xusid mudan in marka laga hadlayo howlgallada noocan ah ay yihiin ama weerarada lagu soo qaadayo bulshada Soomaaliyeed iyo xarumaheeda ganacsiga iyo bulshada rayidka ah oo aan waxba galabsanin oo barimageedada ah oo diin islaam iyo diin gaalo iyo sharci adduunka ka jira uusan saamaxaynin dadkaas in la dhibaateeyo inay ku dhiiradeen maleeshiyada al-shabaab inay dadkaas waxyeeleeyaan oo dhibaateeyaan ayaga ugu talagalaya inay xanuujiyaan shacabka marka meeshan ay joogto waxaa lama huraan ah in xukuumaddana dowrkeeda ay qaadato oo ah sugitaanka amniga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa eedaysa amniga ayagoo wada jirana waxay ballan qaadayaan inaysan u kala hari doonin sidii ay uga hortagi lahaayeen oo badbaadin lahaayeen ummadooda waxaan ka tacsiyeynaynaa oo murugada xanuunka la qaybsanaynaa dadkii meesha ku dhintay dadkii ku dhaawacmay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eheladii dadka meesha ku dhintay qaarkood waxaan ahayn asxaab qaarkood waxaan ahayn ehelo qaarkood waxaan ahayn dad aan isnaqaano guri kasta oo Soomaaliyeed maanta waxaa taalo dhibaato la xiriirta weerarkan waxshinimada ah oo lagu soo qaaday marka laga hadlayo xukuumadda dan qaran oo ra'iisul wasaaraheeda uu yahay Xamza Cabdi Barre waxay diyaar u tahay mas'uuliyaddeeda inay qaadato hawsha bulshada Soomaaliyeed ee u haysana sida ugu wanaagsan oo u maareyn karto inay u maareyso gaar ahaan hawsha amniga waxaad ogtihiin xukuumaddan hadafkeeda koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waa amni bulshada Soomaaliyeed in amni ku noolaato muwaadinka Soomaaliyeed inuu ka soo tooso gurigiisa isagoo aamin ah shaqadiisa inuu aado isagoo aamin ah inuu gurigiisa ku soo laabto isagoo aamin ah ballanqaadkaas isagaa si looga dhabeeyo xukuumadda waxay diyaar u tahay isla xisaabtan inay la xisaabiyo oo si mas'uuliyad loo xisaabiyo isla xisaabtankaas waa inuu ku saleysanaado
xaqaa'iq iyo waqaa'ic dhab ah waa inuu ku salaysnaado waa inuusan ku salaysnaanin dacaayad raqiis ah xukuumadda waxay diyaar u tahay oo soo dhoweynaysaa dhaliil kasta oo wax dhisaysa oo ku dhisan xaqiiqo saas darteed isla xisaabtanka waa mid aan u taagannahay waa mid aan diyaar u nahay wixii dhacdo ah oo dhacay oo la xiriira qiimaynta hawshan gacanta ayaa lagu hayaa waxaanan diyaar u nahay wixii duruus oo laga bartana inaan ku horumarino qaababka loo sugayo amniga iyo qaababka bulshada Soomaaliyeed loogu adeegayo marka leeto waxaan bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah kuwoodii ummadda badbaadiyey kuwooda dhaawacan waxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu caafiyo kuwooda sheedan inuu Ilaahay ka aqbalo ummaddii Soomaaliyeed oo meesha lagu gumaadayna intii dhimatay Allah u naxariisto xanuunka iyo murugadan waxaan la qaybsanaynaa ehelkooda inta bogtana waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa caafimaad qayb qaba